waxaynu waraysi la yeelnaa gudoomiyaha ururka UNCS xaaji muusud yarax oo horantiiba aan weydiinayna shirkii maanta lagu kala dareeray muxuu ahaa gundhigiisa waxa la isku qabtay bismillaahi rahmaani rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin horta maanta goobjoog ayaad wada aheedeen muuqaalkana waad arkayseen shirkana maanta wuxuu ahaay shir lala rooraayo oon haddii la shir Soomaaliyeed aan u ekaynin oo la rabo in maanta la mariyo oo la isku gudbiyo Soomaali heshiisiinteed wax u dana waxa yahay mataqaana ka turjumayo midnimadeeda wax heshiisa wax meel wax isla dhigida iswarsi male qolo ayaa waxay taagneeday meesha iiduba dumoodo inay jaarta ka leedahay hal la mariyo hal la sheego hal lagu sabciyo haddii la hadlay taga dadkii gudaha ku jiraan gudaha ma gelin in dadkii yiri war dadka hal la sugo intay taagan yihiin wixii la tabanayna hal la ogaado kuwa maqana hal la warsado waxa la yiri manoraanti waxa maqan waa wax manoraatiya wax maqan shirka ka maqan male wax ma ku jira waxay ahaayeen wax yar ayay ahayd waa la ogyahay shirka waa lagu kala maqan yahay waqooyi cidna sugmayso ayahay Cabdulla ninka la yiraahdo Cabdi Qaasim oo shirka ka baxay oo asaguna yiri war wuxuu wax fiican ka socdaan laguma warcelin ninka la yiraahdo Barreeyay oo asaguna yiri war sidii bal halay soo doona lama doonin anakoo banaanka taagnayna hal la mariyo ayay maanta shirku wuxuu ahay anakuna waadiidna inaan galno ninka raga ha mariyaan dhahna kibligaadna anaku waxaan aqoonsanahay waxa dadka loo dhiso haayo ama la rabo in la daaweeyo Kenya anaga waxba naga maaleys anaka Ethiopia wax naga maaleys anaka iyo nimanka la yiraahdo Djibouti waxba naga maaleys Soomaalida wax ka leeysiin in la heshiisiyo ayaan rab nimanka saxiixayaasha xataa meel la isku keenayo mala waa la kala qarina qol walba waa la roora col iyo cadaawo ayagoo oo dumooda meesha inay isku feeri rabaan oo dadka xataa meesha ayaga la kala socdo ay kulligood cadaawiisa wada qabaan ayaa waxa la rabaa in wax la mariyo wax saasan in dalkii la geeyo 4 sano dib u dhaco laga soo kaba kari oo dagaalkii 91 bilowdo kale ayaa dalka ay u muuqataa inuu ka dhacayo haddaan arrinta beriga aan aragnay aan wax laga bedelin oo falxumada beriga beri lagu shaqeeyo oo beriyaha dambe lagu shaqeeyo waxaana ka codsanaynaa una sheegaynaa maanta qoraalka saddex ayaan dhiibnay oon leenahay warqadaani waa colaad gooniyahay muujine oo ma ahan warqad hay'adaha Soomaalida colaaday wali qabtay mid lagu heshiisiinayo ma ahan kelmadaha ku qorana wada colaada qaab male niman aqoonyahan oo khubara sida warqada ku arkaysiin oo Soomaaliya oo nadiif la ka qabin oo nadiif ahayn iyo niman ajaanib oo nimanka lacagta bixinaya kamida oo aqoonyahan ha loo bixiyo hanoo soo qoraan warqadaas mataqaana qof arkabada akhriso ku farxayso hala keeno aan ka doodno wixii quruxan waxayno aan soo wada kaashano waxaan ku heshiisnaa aan noqon hogaamiyaalna heshiis ma nihin qaraabanimana dadku heshiis uma ahan balaayo aan la aragoon la maqal ayaan halka ka soo socdo waana uga sii digaynaa anaka dadkayna joogo magaalada Muqdisho meeshaan ay fidnada soo socotaan si sheegeen waxaad sheegtay xaaji muuse inay jiraan qolooyin dastuurka raba inay afgabiyaan oo maanta shirkaasi ayaga hoggaanka u hayay oo idinkana in dafir xuquuqdii aad ku lahaydeen iyo kaalintiinii qolooyinka aad tilmaamtay waa kuwee bal shaaca ka qaad wallahi waa badan yihiin nimanka ajaanibta xataa waa niman iska nasaxan oo dana gooniyi inay leeyihiin aad u moodo dadka ma kala yaqaaniin Abdullahi Yusuf saaka yiri yaa leeyahay shirka waa ka baxa hadana beriga jaarta kaan la maray horta shirku ma ka bixlaan beriga jaarta laga helo lama maray laakiin balaayidi beriga beri taagnay in gacanta la isku la galo meesha gudaheeda ayay u dhowdahay arrin waana la arki doonaa berina waa la isku tagaa waxaan mataqaanaa hadana la dheen war soo heshiiye oo hogaamiyaasha aan la soo fasaxinay meel isla galaan oo is warsadaan hadaan loo fasaxin waxay ma haysaa in hogaamiyaasha dadka la wada socdo iyo hogaamiyaasha naftarkooda isfiirana ka baqayn arrintaas ay joogtaa maanta arrin wararka suuqa marka la eego iyo wararka madax banaan ee ka soo baxaya dhinacaaga ama siyaasada ku dhow waxay sheegayaan inaad guud ahaanba ka soo horjeedo in federaal dawlad la magac baxday aan ka shaqeyn Soomaaliya arrintaas maxaa ka jiro anaku wixii aan rabno iyo waxaana rabinba waan cadaynaynaa qof la arkaba hantideeda iyo dhulkeeda iyo dhaqankeeda inay lahaato idoon isticmaari ahay oo shaqo isticmaar ayan ku jirin oo hadhowto lagu heshiiyo diyaaran u nahay laakiin warqadan aragnay
waxay joogaysa waxay sheegaysaa inaan kala afna inaan kala diinna inaanan isku dadahay inaan caloosh iskaga buqno inaan is cunayn war intaan u kala soconnaa wala anugu isku cidi mani oo wala isku Soomaali mani meeshaan u kala soconno la kala geeyahay waas wax kala go'go'an oo qolo walba ay doonto qolaaday rabto baarlamaanka inuu wuxuu heshiis ku gaaray anaku inaan ayahay mataqaanaa cadawga kala soo dejin ciidamadeeda oo qolo kala dhihi doonto anigana qolo hebel aan soo degsana baarlamaankii oo aniga qolo dhihi doonto anigana qolo hebel aan soo degsana oo qolo walba dhihi doonto anigana qayb hebel aan soo degsana ciidamo islaameed la kala keeni doon waayo hadda warqadan anaku arag kala afal la naqana kala diina la naqana isku dad la naqama la daawoobi ma balaayaa ku qor balaayadaas waa ka digay waana la arki doonaa qaab ceenkee ayaa rabtaa hadda inaad ku haddii aad tihiin beelaha hawiye aad kula qaybsataan beelaha kale ee markaa shirkada kala qayb galay anaka hawiye kaliya ma nihinnimo ka diidan waa muwaadiniinta ninkii wadaninimo ku jirto warqadan waa diidan ma hina hawiye kale ma nihin shirku adiga xaaji muuse markii hore ka baxday haddana dib ugu soo laabatay in muddo ahna waa joogta shirka sawir ceenkee ayaad ka qabtaa hadda shirku miyuu noqon karaa mid mir dhalo mise burbur ayaa ku tilmaami kartaa sawir maagii hore anigu shirka kama bixin qalad iyo wax leesdaba marinayo shaqadoon soconaynin inaan ka tago inaan soo shaqeeyo waana la soo shaqeeyay dadkayga waa la soo shaqeeyay haddana dib waa ii soo direen waana la wacyo hal war shaqadii waa hagaagay imow waa dadkina waa soo direen aniguna waa hagaageediyaan hadda u nimi maanta 19 bari ayaan joogaa niman hogaamiyayaal hoos saxiixayaasho meel ku wada jira waaga ma arkin ayagoo shirayna ma arkin ayagoo noogula yeerana ma jirto maalin dhawaa bilanadiga la iskugu yeeray buugga la keenay waa la akhriyay wooga mahad celinayna dadka buugga akhriya wooga mahad celinay buuggii haddaan dadka kula soo noqonana wax qaadasho leh in colaad kale uu yahay ayaan arag maanta waxaa la yidhi buuggiyaaba la baasinaa waa la akhrinaa waa la baasinaa jaartarka waaye waxaan sheegay warniyaha buu wax la baasiyay jaartar la baasiyay meeshaan ku bayaadhe maxay tahay waa lagu kala jabay si aan sahlanayn loogu kala jabay haddana berrito colaadii weli waa sii taaganta oo dadkii in la heshiisiyey oo hogaamiyaashii meel la iskugu geeyey war waxaan haa idan anfaca aansay idan anficin sayso wuxuu yaalin ceeda dhaahaysa ma jirto waa lala kala saftay waxaa la leeyahay waxaan maqlay in ay mataqaanaa lala kala shiraayo wixii calaa kulli xaal waxaan hagaagsanayn halisa qatara ayay yihiin waa intaasaan caddeeyna waxay jiraan runaa caddeeyna dastuurka ay u badan inta badan waxa ka cabanayso oo sheegaysa inay ku jiraan barnaamijyo qatar ku ah arrimaha Soomaaliya oo ay markaa soo milayaan kooxaha aan dalka Soomaaliya ka talinayn ma dastuurka in la bedelo guud ahaan qabtaa mise waxaad xusaysaa qodobo xasaasi oo aad doonayso oo 1 iyo 2 ah in laga bixiyo dastuurka gebigiisba waa la arki doonaa wax qaadasho leh oo hayaha mataqaanaa cid walba ay qaadan karto Soomaaliya cid aan isticmaar u adeegayno isticmaar yahay sharaf darro dalka u rabin hal xab waxay qaadan karto waa ku yari waxa la qaadan karo shaqada caadiga waa la qaadan karaa laakiin habka Soomaalida midnimadeeda iyo jiritaankeeda iyo waxa ku qoran sida loo kala qaybiyo war waa dagaalkii horo waaba laga reestay midaan sahlanaynayo laaminaaya oo aad u fol khubaro aqoon u leh oo Soomaaliya oo caadifi ahay oo qalbigoodu san yahay oo dalku inuu kala go'in rabo ayaan waxaan rabnaa in loo bixi nimanka deeq bixiyaashaana inay soo dirsadaan ayagana dad kabo ayaga hadda deeqdi bixiyahay war Soomaali waxa u dana saana u dana war qof wax u dana anigu marro meeshaan hoog iyo balaayo ka dhacay Soomaali laba qaybood oo loo qaybi isku diin ma ahan nalayo isku diin ma ahan waa yarta waxa ka daran sida loo kala qaybiyo haya dalka oo u kala go'go haya ayaa ugu xun anaka hadii federaal leeyahay oo federaal saxira ribooriyaga dhulway war dadka halla warso yaa iga beera bada yaa iga badway wardadan waxaan ka celiyo haya waxay ku ribo waxaan inay cad islaamada dalka soo geliyaan kaliya wax kale aniga ma hadda hunguru qofaan uga baahanaa jirta cidaan hunguru uga baahanno maanta aan badar galeyna cid ka mar mesegana ka mar ayay nyaayana ka mar basalna ka mar kalluuna ka mar xoolana ka mar war wax oo dhanba magaalada waxay imaayaan qowladan oo ay mataqaanaa aniga hadda dadka mudooda ay leeyihiin ayaa wax walba heesta saasoon ogahan dadku inay wax la cunaan rabno hadii la yiraahdo sida loo sheegay inta xamar ku jirto gur kule inaan ka bixino ma aan wal qasba oo ka erin oo beeraha ka erin oo niraaho war yaa meeshin taga tacbana meeshin colaadaas way waxaan ka digaa wal cumada daadaan raba inay isla noolaadaan ay isku ag noolaadaan laakiin dada waxay ka shaqeeyo hayaan waxay u jeedaan ama ay rabaan walaxaynan ogeeyeen xataa raba inta xamar ku nool iyo inta deegaanada ku dhow ku nool
هدي غفلان كبل إلى هذا كاجا واقوك أسامي من الفال لا تورتور حقيقي جينا يا واحد ليش يجينا يا بالهلا ورصو وقال لا أنا قارب وأنا تلاقين حنتيسها كبر ضد حن ثلاثة ده كبر وأرجنا ثلاثة لما نقان bahal kan leeyahay hadii maroodo meel ka baxdaadkiisa waa la yaqaan hadii dawca meel ka baxdana waa la yaqaan bahal kan doofaarka leeyahay meel ka baxana waa la yaqaan raad kan naqaanaa anaga kaasna xaaji muuse wiil wuxuu ugu warramay hotelka Hilton ee magaalada Nairobi maxsan xaaj ri hadii aad shir ay ka bilaabato doodii ku saabsanayd dastuurka waxaan la wanaajiyo aan ku doodaynaa waxana waxa la yiri wax wanaagsanaa doono marka hore ayaa ifaalahooda laga yaqaan anagu wax wanaagsan rabnaa hogaamiyayaasha horta inay saxiixayaasha inay meel la isku geeyo buuga naftirkooda iyo wixii horta marka hore laga doodo leeyra heerka wata la arko baryaa wata buuga sidoo uu yaalayaa u qor heerkii difaacaya barigan aragnay nin waa difaaca buugana wadanimadu ku egtahay bal kan hal aqri ninkan wadaniyo buugay ka soo baxaysa maanta waxaa muuqatay in isu soo dhawaansho adiga iyo xaaji muuse iyo kooxaha la baxay group 8ka oo dhinaca siyaasadda aad isaga soo dhawaanaysaan marka ma la oran karaa tallaabadaasi waxay muujinaysaa in dhinaca siyaasadda aad isaga soo dhawdihiin kooxaha la baxay group 8ka inta fiican oo dhammaan isu soo dhaweeyeen group 8 ha noqdaan group 6 ha noqdaan group 6 ha noqdaan group 9 ha noqdaan group 10 ha noqdaan wixii fiican oo dhan oo wadaniyiina oo raba Soomaaliya inay wax isku u hagaagaan diyaaraan oo nawas ku soo dhacay Abdi Qaasim iyo anaka maanta ra'yigayna waa isku mid war Soomaaliya la kala qiimeeyay la hoojin jooga anaguna wali jooga waxaan weliba laana hala keeno Abdi Qaasim hala keeno barihiida muwaadiniinta kale oo dalka waxa kula hala keeno dalkayaan way kala madaxda mas'uuliyiinta waa soo gurbina iyo waa hulgaamal haday diido ولا ويدينا ولا جرجورنا ولا لو هي منطقنا إذن كبدا من اللي هو لقول نقول ولا اسكودنا شغلة لا اسكودنا وعوان لو دمانا يا لما كاسب ومهم هو بدنا يدل خذوا قبته وحبدنا يوحية تذكوا كدرجة سرية ويلي بعد دقة الله ذكر صعد ملاك الدولة قبلتي الله اسكاد دقة الدولة قبلتي ما ملك صومالي لأن ما مول ميده ماشي يلا مال وحكوا سود واكرو أو كاس كسود واكرو ويلي بهالك كونفورت مقدش يدل كاس أيا كأجر ما هي نمكوا كلوا الشيء جاي حاله ما ملا هرت مالها كليه tallaabada aad qaadanaysaan bari hadii halkaasi lagu soo bandhigo dastuurkii adiga xaajiyaan tallaabada aad ku qorshaysan maxay tahay taasi waa dhimanta